labadan nin ayaa waxa lagu tirinayay inay dhinteen laakiin ayagu waxay ku jireen saxaraha ayagoo daalan sidoo kalena oo manay waxay arkaan galaas biyo ku jira halkaan yaal ninkan saxirka soo cararay kadib galaaska uu qabsanaya isla markuu galaaska qabsadan jirkiisa idil hal mar uu qarxay oo waa la weynayaaba wiilka gareer ee madowgan uu leeyahay ninkan waxa ku dhacay kadib wuxuu ka cabsanaya galaaska inuu soo dhawaado welibana isagoo aamusnay cirka fiirinaya wuxuuna ka fiirinaya qorraxda sababtoo ah digriga qorraxda waa 2000 oo digri centigrade markaas ninku wuxuu dareensinaya cabsi iyo kalsooni laakiin kalsoonida ay dirid saaraya wuxuuna ka baqay inuu geeriyoodo laakiin wuxuu isku dayay galaaska inuu soo dhawaado hal mar galaaskii dhakab siisana isla markiin biyaha ayuu ka cabaya nasiib wanaag markuu galaaska biyaha ka cabo ninkani wuxuu yeelanayaa awood aan caadi ahayn meel waliba oo uu gacantiisa saarana waxay noqonaysaaba doog adigana daawada ha ilaawin muuqaalka in like inoo saarto wuxuu bilaabayaa markaani inuu cabo biyihii galaaskaasi ku jiray welibana isagoo haaya oo ugu dambeyn ninku xaba ma gaarayo jirkiisana caadi noqonaya laakiin meel walba gacantiisa saarna isla markii waxay noqonaysaa doog maan saxarihii oo idil wuxuu isku bedelayaa doog ninkan uu leeyahay awood markaan gaarka uu isaga yeeshay markaas wuxuu ogaanayaa biyaha ku jiray galaaskaas inuu yahay biyo aad iyo aad u awood badan wuxuu dareemayaa ninka farxad fara badan sidoo kale wuxuu isdhahayaa waxaad yeelatay awood adigoo kaliya ku gaar ah